Ruushka oo duulaan ballaaran ku qaaday wadanka Ukraine ayaa wax yar waxay u jiraan in ay gacanta ku dhigaan caasimadda Kiev. Madaxweynaha wadanka Ukraine ayaa wuxuu u sheegay adduunka iyo warbaahintaba in bartilmaameedka koowaad ee Vladimir Putin iyo ciidamadiisa huwanta ah ee gudaha u soo galay wadanka Ukraine ay tahay in ay isaga marka koowaad qabtaan deedna qoyskiisa ay ku xijiyaan. inta aynan gudagelin dagaalku meesha uu marayo hadda iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo meesha la rajaynayo inuu dagaalkan mustaqbalka ku dambeeyo, bal aan dib ugu noqono wax yar maalinnimadii Khamiista ee dagaalkan bilowday iyo qaabkii ku bilowday iyo dhacdooyinku sidii ay isku soo xiriirnaayeen si aan u soo gaarno dhacdooyinku maanta meesha ay marayaan iyo meesha la rajaynayo mustaqbalka in ay ku dambeeyaan. fadlan saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto in kaga codsanayaa haddii aad kanaalkayga hore ugu taxanayd inaad muuqaalkan like ii saarto, haddii aad hadda ku cusub tahayna in aad like iyo subscribe ii saarto. waayaha subaxnimadii Khamiista Ruushka ayaa si daran gantaal ula dhacay magaalooyin fara badan oo ka tirsan wadanka Ukraine, isagoo weerar kaga soo qaaday wadanka Ukraine saddex jiho oo kala ah waqooyiga, koonfurta iyo bariga. isla markiina waxa la arkayay qaraxyo iyo qiiq hawada isku shareerayay magaalooyinkaas uu ka geysanayay Ruushku duqeymaha. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa uga digay dawladda isku dayda in ay faraha la soo gasho dagaalkan in ay arki doonto cawaaqib xumo aysan horay taariikhdeeda u arag. sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ugu baaqay ciidamada Ukraine ee qalabka sida in ay hubka dhigaan guryahoodana ku noqdaan. intaas kadib wasiirka arrimaha dibadda wadanka Ukraine ayaa ka codsaday qaramada midoobay in dagaalkan lagu joojiyo si walba oo lagu joojin karo. waxa inta xigtay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa adduunyada u sheegay in Ruushka lala xisaabtami doono, waxa uuna saadaaliyay in dagaalkan khasaaro weyn oo dhimasho iyo dhaawac ah ay ka dhalan doonaan. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxa uu sheegay in ay garab istaagi doonaan wadanka Ukraine oo duulaan ballaaran ay ku soo qaaday Ruushku. dhanka kale madaxweynaha Ukraine ayaa horay u sheegay in dagaalkan uu yahay bilow dagaal weyn oo ka dhici doona dhammaan qaaradda Yurub. inta badan dawlad awoodeeda ciidan markii la qiimeynayo meelaha ugu badan ee wax laga fiiriyo waxa kamid ah wadankan meeqa madax oo nuclear ah ayuu haystaa. maxaa ku dhacay wadanka Ukraine? waxaa la ogyahay Ukraine in sanadkii 1991 ay ahayd wadanka saddexaad ee adduunyada ugu nuclear badan. waayahay nuclearkii Ukraine maxaa ku dhacay? sanadkii 1991 markii midowga Soviet kala furfurtay, Ukraine waxay uga tageen kumanaan madax oo nuclear ah. Ukraine waxay ahayd wadanka saddexaad ee nuclearka ugu badan haysta adduunka. wax yar kadib Ukraine waxay bilowday in ay burburiso nuclearkii kadib markii Mareykanka iyo Ruushku heshiiskii la oran jiray Budapest Memorandum ee dhacay 1994 ay u damaanad qaadeen amnigeeda oo ay yiraahdeen amnigaaga annaga ayaa damaanad qaadayna. la soco Mareykanka iyo Ruushka ayaa xilliga waxay ku yiraahdeen Ukraine amnigaaga annaga ayaa damaanad qaadayna ee nuclearkiina qaybna furfura oo burburiya qaybna soo wareejiya. sanadkii 1991 Ukraine waxay ka nuclear badneed wadamada Ingiriiska, Faransiiska iyo Shiinaha. Ukraine madaxyadii nuclearka qaybo badan oo kamid ah waxay ku wareejisay Ruushka kadib markii reer galbeedku dhexdhexaadiyeen kuna qanciyeen in ay ku wareejiso Ruushka. waayahay aan intaas uga baxno nuclearkii wadanka Ukraine iyo wixii ku dhacay dagaalku markii uu faraha ka baxay. madaxweynaha wadanka Ukraine ayaa shacabkiisa wuxuu sheegay in dawladdu qof walba oo diyaar u ah in uu wadanka difaaco ay hubka farta ka saari doonto. shalay madaxweynaha wadanka Ukraine ayaa yiri hadalkan soo socda: maanta 27 hogaamiye oo reer Yurub ah ayaan weydiiyay in Ukraine ay ka mid noqon karto gaashaanbuurta NATO iyo in kale. haa, si toos ah ayaan u weydiiyay. mid walba wuu baqa, mid ii jawaabayna kuma jirin. Ukraine kaligeed ayaa laga tagay oo meel cidla ah ayaa looga dhaqaaqa. cid u soo gurmanaysa iyo cid u soo helinaysana ma jirto. ilaa intii uu dagaalku bilowday Ruushku wuxuu hadba qabsanayay qaybo kamid ah dhulka Ukraine. hadba waxa uu qabsanayay xarumo waaweyn oo ciidanka Ukraine ay lahaayeen. meelaha ugu caansan iyo magaalooyinka ugu caansan ee Ruushku ilaa ay hadda gacanta ku dhigay waxa kamid ah magaaladii Chernobyl ee caanka ahayd ee musiibadii weyneed ay ka dhacday sanadkii 1986. waayahay Chernobyl
waa magaaladee maxay tahay se musiibadii ka dhacday Chernobyl waxay ahayd xarun nuclear-ka lagu bacrimiyo sanadkii 1986 ayaa waxaa ka dhacay qarax nuclear oo aad u weyn deedna shucaaci qaraxaas ayaa dibadda u faafay midowga Soviet ee xilliga ka arrimanayay wadanka Ukraine waxay qariyeen musiibadan weyn ee dhacday ugu dambeyn musiibadan Chernobyl waxaa laga jilay taxane ilaa iyo 5 qaybood ah oo faahfaahinaya sidii ay musiibadu u dhacday magaaladaasna hadda waxaa gacanta ku dhigay dawladda Ruushka waayaha hogaamiyaasha caalamku maxay ka yiraahdeen duulaanka oo Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa wuxuu yiri aad ayaan idinku soo duceynaynaa reer Ukraine dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa isna wuxuu yiri adduunyada oo dhan ayaa idin soo duceynaysa ra'iisul wasaaraha Canada ayaa isagu dhaliilay wuxuuna ku tilmaamay duulaanka oo Ruushka ku qaaday Ukraine mid aad u falxun ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa wuxuu ku sheegay duulaanka oo Ruushka ku qaaday Ukraine in uu Ruushku buriyay qaanuunkii caalamka Faransiiska madaxweynahoodu isagu waxa uu weerarkan ku tilmaamay Putin inuu yahay nin waalan dawladda China ayaa iyadu waxay garab istaagtay wadanka Ruushka tusaale ahaan safaaradda China ay ku leeyihiin wadanka Ruushka ayaa bartay Twitter-ka wax ku soo qortay qoraal sidaan u dhignaa 248 dagaal iyo iska hor imaad ka dhacay 153 goobood ama wadan oo ku yaala dunida daafaheeda intii u dhaxaysay sanadihii 1945 ilaa 2001 201 kamid ah 248 dagaal iyo khilaaf iyo iska hor imaad waxa ka dambeeyay 80% wadanka Mareykanka dawladda Shiinaha ayaa sidoo kale ka kor qaaday Ruushka xanibaad ay hore u saartay qaybo kamid ah dalaga beeraha ee Ruushka ka baxa waxayna go'aansatay hadda in ay ka soo dhoofsato Ruushka qaybo kamid ah dalaga beeraha iyadoo ugu talagashay arrintan in ay Ruushka ka kala fududeyso cunaqabataynta ay saareen reer galbeedku khuburo u dhashay wadanka China ayaa sidoo kale waxay sheegeen in China bilaabi doono in uu shidaalka ka soo iibsado Ruushka sidoo kalena uu amaahin doono lacag fara badan sidoo kale uu ku caawin doono tiknoolajiyad aad u horumarsan si ay Ruushka ugu kala fududeeyaan cunaqabataynta ay saareen reer galbeedku madaxweynaha Ukraine oo video call kula hadlay qaybo kamid ah hogaamiyaasha Yurub ayaa wuxuu sheegay in wada hadalkan uu la hadlayo laga yaabo inuu noqdo wada hadalkii iyo araggii ugu dambeeyay oo ay arkaan isaga oo nool madaxweynaha ayaa qorigiisa qaatay isagoo u sheegay shacabka degan magaalada Kiev in uu qayb ka yahay lana safan yahay sidii wadanka loo difaaci lahaa warar ayaa mar waxay sheegeen in madaxweynuhu wadanka isaga cararay laakiin madaxweynaha Ukraine ayaa muuqaal soo duubay isagoo ku sheegaya in uusan wadanka meelna uga cararin madaxweynaha ayaa hadalkan markuu sheegayay yacni ah in uusan wadanka ka cararin waxa uu taagnaa jid ku yaala magaalada Kiev waxaana garbihiisa taagnaa ra'iisul wasaarihii wadanka wasiirka difaaca wadanka la taliyihiisii iyo madaxii xafiiskiisa intaas waxaa dheer TV-ga qaranka wadanka Ukraine shaqaalihiisii ayaa waxay bilaabeen in ay isaga cararaan xarumihii iyo xafiisyadii TV-ga iyaga oo ka baqay in ciidamada Ruushiyaanka ay beegsadaan oo ay soo duqeeyaan wararka saacadlaha ayay waxay ka soo tabinayaan meel aan la garanayn oo mugdiya yacni meelo ay ku dhunteen halkaas ayayna wararka saacadlaha ah ka soo tabinayaan wararkii ugu dambeeyay ee hadda soo dhacay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha wadanka Ukraine uu ku dhawaaqay xabad joojin oo sidoo kalena uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu miiska la fariisto oo wada hadal uu la furo dawladda Ruushka wararku waa iska soo daba dhacayaan saacad daqiiqad iyo ilbiriqsi ayay iska soo daba dhacayaan warar ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Ruushku ay qabsadeen Kiev laakiin wararkaas warar la xaqiijin kara ma ahan wararku inta badan waxay sheegayaan in ciidamada Ruushku ay ku hareeraysan yihiin magaalada Kiev oo mar walba ay qabsan karaan gaabigana ay ku hayaan arrinta iyaduna yaabkeeda leh ayaa waxay tahay in madaxweynaha Ukraine Twitter-kiisa uu falowdi kala noqday dhammaan madaxdii uu horay falowda u siiyay yacni mid walba aan falow buu yiri arrinta waxa mooday in uu uga jawaabayo kadib markii uu gurmad iyo gacan iyo gaashaanba uu ka waayay madaxdaas oo ay ku fiirsadeen duulaanka Ruushku ku hayo wadankiisa adiga daawada maxay kula tahay in uu ku dambeyn doono dagaalkan bal aragtidaada qaybta faallada igula wadaag saaxiib waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto kaaga codsanayaa in haddii aad kanaalkan horay ugu taxanayd
in aad like ii saartid, haddii aad hadda ku cusub tahayna in aad like iyo subscribe ii saartid. waa noo muuqaal kale oo xiiso leh. nooli kulantee waa maasantihiin guulaysta.